السلام عليكم ورحمة الله. مقعيق وعنب maanta topic waxaan idin wadaa aad muhiim u ah oo laga yaabo dad badan oo naga mid ah inuu quseeyo. Waxaa laga yaabaa inteena badan inayna soo martay inaan isku aragno caloosha oo nooga warwareegato inay qofkii marmar hawadaas ay ku keento xanuun, uu neefsan waayo, raaxo daro, marmar in qofka dhuusada ceshan waayo, dadka inaa ku dhex fadhin weysid calooshaada qayliso, raaxo ku dhex fadhin weysid. Maxay noqon kartaa marka? Positive iyo negative waa loo qaataa wax walba. Marna wax normal ah noqon kartaa oo waqti yar kooban imaan karto, weliba markay calooshaada kala qaylinayso inta badan khatar ma aha. Laakiin hawada caloosha ku warwareeganayso oo raaxada ku diiday waxay tahay horta sidaa ognahay caloosha oo qofka bini'aadamka ah meesha uu ka nool yahay waxaa la dhahaa waa maskaxda labaad ee qofka bini'aadamka ah. Marka waxaanu dhibaataa oo calooshaada kugu hayso maxaa sababo? Sidee looga hortagi karaa? Daawo ma leedahay? Maxay dhaqaatiirta ka dhaheen? Wixii tale ah iyo wixii su'aalo badan oo laga yaabo niyadaada inay hore ugu jireen haddii aad danaynaysid ay ku qusayso nala sii joog ilaa uu videoga dhammaanayo. Midda kale channelkan haddaad hore ugu xirnayn waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe garaysid, in aad nagu dhiirigelisid si aan usoo badino topic aad muhiim dadkeena u ah oo caawin doona dad badan oo naga mid ah. Horta maxaa sababo in calooshaada ay raaxo weyso ee deganaansho la-aan kugu rido? Number 1, cuntada in si stress loo boobsiisa loo cuno. Sida horta ognahay dadkeena waxaan nahay dad oo cuntada markaa cunayno dagaal ku wada jirnaa. Qofku waxaa lagu leeyahayba haddii aad tartiib u cunaysid oo waqti qaadanayso waa kugu caajisay, cuntada way igu qabowday. Dadku waxay aaminsan yihiin si xay ah cuntada in loo cuno, xayigaas oo ah 1 2 cuntada saxankii oo kulul oo dhulka hadii lagu dhufto qarxaayo waa laga kacay. Waa dhaqankeena. Marka stresska saa cuntada cunaysid saameyn waxay ku yeelanaysaa in calooshaada ay hawo badan gasho. Cuntada waqti si tartiib u ruug, si nafis leh, sidaas ayuu caafimaadka ku jiraa. Number 2, xanjada. Waxaa laga yaabaa in dad badan isweydiiyaan xanjo sidee rugigaas igu ridi kartaa ama caloosheeda hawo ugu warwareegan kartaa. Yes, xanjada mar walbo oo ruugaysid ogow inaad la laqaysid hawo. Sigaarka aad meelo badan looga hadlaa. Sigaarka inuu asagana leeyahay calooshaada dhibaatooyin badan oo caafimaadkeena ku leeyahay. Ognahay calooshana saameyn badan oo ku leeyahay sida in hawo badan ay calooshaada ku warwareegato. Waxyaabaha acidka ah, waxyaabaha cabitaanada acidka ku jirto, waxyaabahaas oo dhan, Cola, Fanta, all waxyaabaha acidka leh oo dhan ka fogow, ayagana way keenaan. Spicy foodka, cuntooyinka waxyaabaha carfisada iyo kalidarada lagu daro lagu soo macaaneynayo waxaa laga yaabaa ayagana in ay marar badan kugu keenaan hawo badan oo calooshaada ku wareegato. Digirta, dad waxaa jira calooshooda ee dhibta digirta. Digiraha waliba way kala duwan yihiin, sida digirta cagaaran, mid oo madowda, mid oo minsirta, waxaasoo dhan ayaga xataa way kugu keeni kartaa. Marka waxaa kaloo ayadana aad iyo aad muhiim u ah oo sababi karo lactose intolerance haddaad tahay iyo gluten intolerance. Waxyaabahaasna way sababaan dadka caanaha allergiga ku ah iyo dadka oo ku ah glutenka allergiga. Waxyaabaha qamadiga iyo burka iyo waxyaabihii sababi kara waa sheegnay. Marka sidee uga gudbi kartaa oo uga caafimaadi kartaa? Horta number 1 waxaa aad muhiim u ah mar walbo dhakhtarkaagana la xiriirtid, sababtoo ah dhakhtarka baaritaan ayuu ku diri doonaa. waxaa sababi kara waxyaabo badan sababi karo. Kaliya waxaan soo tirinay ma sababi karaan. Waxaa sababi karta infection, waxaa sababi karto stress, waxaa sababi karo
waxyaabo badan oo caloosha ku imaada. Caloosha waa jirkaaga dhan maskaxdiisa labaad, so waxyaabo badan oo ku imaan karaa jiro xanuune. Marka baaritaan waa inaa la sameeyaa marmar. Ogow baaritaan adigaa sameyn kartid. waxaa laga yaabaa inaad dareentid marmar markaa cuntooyin oo spicy food ee soo cuntid ama lagu daray kiliidarada adag iyo waxyaabahaas, inaad dareentid calooshaadii oo xanuuneyso. markaas was weydiinaysaa dhowr mar hadday kugu dhacdo, ayaan joojiyey waxyaabaha ama adigu gurigaagaba ku isticmaashid oo cuntada ku carfisid, ama waxyaabaha adagoo sida spicyga ah jooji. ayaan waa dareemaysaa haddii ay waxaan ahayn ku dhibi jiray. marmar dhakhtarka laftirkiisa waxaa laga yaabaa inuu adiga caawimaad ku weydiisto, ku dhaho bal nala shaqeeyo, soo baar waxaan lagu soo diraya inaa adiga aad gurigaaga kusoo sameysid. waxyaabaha allergiga ku taho kala fiirisid. ayaantaan ha cunin waxaas, caanaha jooji week 2 week in lagu dhaha laga yaabaa. so ayaantaas markaa caanaha joojisid adigaa dareemi kartid. marka qofka biniaadamka marmar asaga laftirkiisa wuu check inuu isku sameyn karaa wixii dhibaayo kale. waa marka aan ku dhahaayo marar badan jirkaaga wuu kuu digaa, jirkaaga maasiki kuu soo diraa, jirkaaga wuu kula hadlaaya, dhageyso. waa sidaan oo kale. maxaa dhacay? jirkaaga wuxuu ku leeyahay waxaan way dhibaayaan, caloosheeda hawadaan ku wareeganaysa maxay tahay? bal isweydii. jirkaaga signal kuu soo diraayo waxaan way dhibaayaan, iga daa, ma awoodo. marka maxaa lagaa rabaa in adiga ama dhakhtarkaaga la xiriirtid markaas, ama ayaantaas waxaas joojisid oo bal adiga xataa tijaabisid inay waxaan yihiin waxa ku dhibaayo. example aniga hadeertaan khibradeyda idinla qaybsan doono. waxaan sameeyey hadda ka hore, aniga caanaha allergy ku ahay. so waxaa lagu dhahay baaritaankii markaa sameeyey 2 deciliter waxaa xamili kartaa 24 hours oo caano ah. waxyaabaha caanaha keeg iyo banaanka markaa wax ka cuno aad ugu jiran jiray. marmar waa matigi jiray markaa kasoo baxo. waxyaabaha shakeska, milk shake iyo waxyaabahaas kreemiga cabo. markii dambe markaa ogaaday in aniga allergy ku ahay, waa bedelay. caanihii dhan guriga waxaa u bedelay lactose free caanahaan soo iibsan jiray. ima caawinin ayagana. mar walba kusii jiran jiray. sidii aadka ugu jiranaya kuwan kale ma aha, laakiin mar walba caloosheeda way daalan tahay. mar walba waxaa dareemayaa caloosha qofka biniaadanka waa energy-gaaga dhan. maxaa dhacay? adiga dhan nafis ma dareemaysid, so concentration ma haysid, abiteedkaaga wuu qalqalsan yahay, mar baahiya ku hayso, mar waa dheragsan tahay, adiga dhan boo si kala tahay. so kadib waxaan sameeyey, waa joojiyey haddana caanihii lactose free-ga ahay. waxaan u bedeshay soya, caanaha almond milkiga iyo kuwa coconutka, waxyaabahaas isticmaalay. kadib markaa waxaan dareemay inaan fiicnaaday calashaan wixii dhibaysay in ay ahaayeen caanaha lactose free-ga. xataa caano dhan totally inay dhibaayeen ogaaday. laakiin hadeertaan ayadana waxaa joojiyey soya caanaha soya waxaa u joojiyeen gadaal aan kala qaybsan doonaa mar kale insha allah. marka qofka marmar asagaas baari kara, ma u baahna dhakhtar inuu dhakhtar. waa muhiim inaa u tagtid, laakiin marmar adiga ayaa ogaan karta wixii ku dhibaayo. meaningkeega waa taas. marka muhiimadda maxay tahay marka? sidee kale markaa heshid wixii ku dhibaayo kale, markaa heshid sida caanaha hadda idinkaga sheekeynayo kale oo bedeshid, waa daawadaada koowaad. wixii ku dhibaayo ka fogaatid. allergic horta food allergy test ma sameyn inteena badan. waa muhiim. cuntada dad badan allergic ku ah waxyaabo. waxaa laga yaabaa maanta qof inuu loosinto cuno oo u dhiman karaa, way dhacdaa, oo aad allergic ugu yahay. marka waa muhiim jirkaaga wixii dhibaayo inaa ogaato. marar finankaa soo baxi karaan oo qofka waxaa laga yaabaa bariya dhan inuu yaabayan isdhahay waxaan finankan maxay iga soo yaacaan, waxa allergic ku tahay. glutiinka oo kale caloosha way dibirtaa dadka. waxaan sababayo waa inuu qofka isweydiiyaa. kadibna horta waxa ugu muhiimsan number 1 dhakhtarkaaga la xiriir mar walbo. number 2na adiga xataa isqiyaas wixii ku dhibaayo waa dareemi kartaa.
midda kale fennel seedska waxaa la dhahaa wuu fiican yahay, aniga weli maana tijaabin laakiin waan soo aqriyay, waa aad ayaa loo amaanay. asagana qaabka loo isticmaalay hadda lama qaybsan karo, maxaa dhaca weli ma sameynin, laakiin waad raadin kartaa, googlin kartaa. apple cider vinegar, the best for caloosha, for weight loss, dadka dhiigkarka qabo, dadka sonkorta qabo, xanuuno badan oo fiican tahay jirkaaga. horta mar walba waa muhiim, marar badan waad indhahay jirka in la nadiifiyo aada muhiim u yahay. maxaa dhacay jirkeena sun badan ayaa ka buuxdo, suntaasna waxyaabaha calooshaada qalqal ku keenayso oo bakteeriyada calooshaada qalqalka ku keenayso qeyb weyna ka qaadataa. suntaasna waxay uga imaan kartaa meelo badan, sida stresska ku keeni karo, environmentiga dhinac walbay kaaga imaan kartaa. cuntadana cunayno haddii aad danaynaysidna barnaamijka detoxin marar badanaa kasoo hadlay, gadaal u gal fiidiyoyaashayda ugu horeeya youtube-kayga ayuu ku jiraa. marka horta waa muhiim apple cider vinegar, calooshaada haddaad dareemaysid qalqalka dareemaysid wuu ku caawinaysaa. wixii kaloo bacteria infection iyo ku haayane waa muhiim dhakhtarka inaad la xiriirtid. waxaa kaloo iyadana caloosheenna aada u dhaawacda ee dadka ogeyn ay isticmaalaan antibiotic, weliba dadka Soomaaliya degan. antibiotiga waa recept free, qofku iska soo iibsan karaa. caloosha xanuunaysa, meesha xanuuntaba antibiotic isticmaalaya. dhaqaatiirtana aaday ugu soo qoraan. dhinaca adduunkana lala dagaalamoy antibiotic sanadadan dambe. waxaa laga sameeyay researchyo badan, artikalo badanaa laga qoray resistance inay sameynayso bakteeriyada, in khatar dadka kusoo socota ee tahay, oo laga yaabo mustaqbalka in dadka waxyaabo berigi hore loo dhiman jiro oo fudfududaay oo hadda daaweyn loo helay in loo dhiman doono, sababtoo ah bakteeriyadii oo kugu caqliyaysan doonto. marka waa muhiim in aada aada u isticmaalin antibiotic. intaa ka fogaan karta ka fogo. waxyaaba badan oo dabiici ah jiro isticmaal, because of waxay kaa baabi'inaysaa mar walba antibiotic aa qaadatid bakteeriyada fiican ee flora bakteeriyada calooshaada ku jirto jirkaaga u baahan yahay. markay taas booska ka baxdane ogo bakteeriyada xumeyd aa boosiisa oo khatarta ahayd weerar ayay kugu soo qaadaysaa. midda kale aada iyo aada muhiim u ah waa fiberka. asagana horta waxaa waaye nafaqada bakteeriyada fiican, waxaa waaye caloosha ku socodsiinaya. maxaa dhaca constipation markuu jiro ama ay saxarada kugu dhegan tahay, ogow calooshaada hawo badan way sameynaysaa iyadana. marka fiberka aada u fiican yahay. waxyaabaha fiberka ka helaysid oo greenka ah weliba waad soo smoothie ka sameyso, sida tufaax oo kale, cagaaran oo kale, asaga caloosha u fiican yahay. inkastoo fructose-ka xataa dadka qaarkood allergy ku noqon karaan. lactose-ka bis ma aha allergy wax lagu noqdo, fructose-ka xataa waa lagu noqdaa. so waxaa laga yaabaa inaa tufaax xataa allergy ku noqon kartid haddii aad dareentid. asaga xataa dhakhtarkaaga la xiriir, haddii oo adiga ku dhibaayo dareentidna waa joojin kartaa. laakiin fiberka waxyaabaha laga helayo oo greenka ah oo sida kale-ka maxaa dhahay celery-ga, waxyaabahaas aad u shiido. marka asxaabta waxaa rajeynayaa in daawadii caloosha hawada kaaga warwareeganaysay iyo fikra aa ka heshay. waxaan rajeynayaa in uu topican ahay mid helpful ah. waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iidaysateen. haddii aad channelkayga hore ugu xirneen ama aad hore u subscribe gareen, mar labaad ku xasuusinaya please no subscribe garee. linkigayga waxaan soo dhigayaa hoos. instagramkayga wixii su-aale ah waa igu soo diri kartiin. marka asalaamu calaykum waraxmatullah.